بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داوديال ميل والبود جوجتان إيسي والبود نو داونيسان كسو دوادا وريسي غارة وان لا يلانينو دكتور ليبان محمد علو oo ah afhayeenka isbedel doonka Jubbaland waxaan ka wareysan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada Jubbaland waxyaabihii ku soo kordhay iyo sida ay tahay hadda xaaladda دكتور ليبان كسو دو هونكيبل تي في aad baa mahadsantahay waxaan ku ka weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada Jubbaland bal ka waran si guud adiga uga waramaya waa sidee xaaladda maanta ee Jubbaland horta Jubbaland waxa weeyaan saddexda gobol geedo jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxayna ka kooban tahay 15 degmood marka xaaladda guud waxa Soomaaliya qabtan bay hadda la qabaan laakiin waxaad moodaa 8 sano ugu dambeeyay Jubbaland in ay ka hooseyso Soomaalida kale waxaana taas koos garanayay maamul xumadii meesha ka jirtay ee maamulka hore ee sababtu u ahaa xagga dhaqaalaha xagga nolosha xagga siyaasadda dhinac walba waxay ka ahayd meel aad u hooseysa qaabka ay u sameysnayd haba ugu daraato sanadkii ugu dambeeyay ama ku dhawaadkii sanadka doorashadii hadda ugu dambeysay Agost wixii ka dambeeyay siyaasadda Jubbaland waxay ahayd unstable mar haday siyaasaddu unstable tahayna waxa weeyaan noloshu ma fiicnaan karto nabadgelyadu ma fiicnaan karto siyaasaddu ma deganayn xaalad qalafsan bay iska ahayd marka Jubbaland wanaag badan kama jirin ba 8 sano la soo dhaafay wanaagaas dhinac walbana uu saameeyay nolosha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha dhinac walba uu saameeyay waxaana sabab u ah maamulkii hore ee Jubbaland ee meesha ka jiray waxa jiray urur isbedel doon oo deegaanada Jubbaland ka jiray horta hore maxaa loo aasaasay ururkaasi muxuu yahay waxaa isbedel doonka Jubbaland loo aasaasay wixii hadda aan ku sheegay mar haddii 8 sano maamul xumo meeshii ay ka jirtay noloshu ay adkayd amnigu uu iska xumaa yaa waxaa ka kacay kacdoon 80% dadka degan Jubbaland ay taageersan yihiin kacdoonkaas oo la yiraahdo isbedel doonka Jubbaland marka isbedel doonka Jubbaland qaab badan buu habeysnaa isbedel doonka gudihiisa waxaa ka dhex jiray musharax golaha isbedel doonka musharaxiinta Jubbaland waxaa ka dhex jiray golaha aqoonyahanka isbedel doonka Jubbaland sidoo kale haweenka dhalinyarada macnaha dhinac walba oo bulshada ah qaab structure fiican iyo u dhisnaa marka isbedel doon cadaalad darradii ka jirtay Jubbaland dhaqaale xumadii maamul xumadii siyaasad xumadii oo sababay maamulkii hore xanuunkiisii isbedel doon ka kacay oo ka sameysmay buu ahaa waxaana liid garanayay isbedel doonkaas niman aqoonyahan ah oo marka hore salka u dhigay kadibna maxay ahayd ururadii bulshada oo dhan u qaabeeyay kadibna musharaxiin badan ayaana loo sameeyay golo isbedel doon oo musharaxiinta ah waxaa jiray laba musharax oo ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay doorashadii Jubbaland oo sida la sheegay Nairobi kula kulmay Axmed Madoobe maxaad kala socotaan kulankaas golaha isbedel doonka Jubbaland musharaxiintiisa ama golaha musharaxiinta isbedel doonka Jubbaland laba nin ma ahayn wuxuu ahaa dad ka badan 10 qofood waa laba ka mid ah kaadi marka 10kaas qofood waxaa ku jira dad aad muhiim u ah waxaa ka mid ahaa wasiirka gaadiidka cirka dhulka Maxamed Cabdullaahi Omar oo hadda wasiirka jooga ah iyo musharax ahaa waxaa ka mid ahaa wasiirkii asaga ka horeeyay Cabdullaahi Cilmooga Xirsi oo ahaa wasiirkii saddexda wasaaradood gaadiidka cirka dhulka boostada iyo warfaafinta waxaa ka mid ahaa labadan musharaxada ee aad sheegaysid waxaa ka mid ahaa musharaxiin kale oo ayagana aad muhiim u ahaa marka golaha musharaxiinta isbedel doonka ku dhawaad sanad waxaa ka jiray buuq badan oo siyaasadeed Kismaayo labadaas waxay ka mid ahaayeen 10kaas nin bay ka mid ahaayeen waxay hadda Nairobi u joogaan heshiis informal ah oo xaqiiqadii aan beeskiisa uu aad muhiim u ahayn ama aan la ogeynba meesha uu ku bees garaysan yahay cidda dhexdhexaadinaysa aan la aqoon taas waa dhinac ilaa 2 mar 3 mar waan arkay waan la qadaynay waan aragnay positionkooda waxay u ekaayeen niman Axmed Madoobe u hiloobay oo maadaama ay ahaayeen hadda Seraar oo kale wuxuu ahaa afhayeenkii maamulkii hore ama afhayeenkii Ras Kamboni buu ahaa marka niman muddaba 8 bilood kala maqnaayo isu hiloobay oo kale iyay u ekaayeen niman aad isu dhaxgalay u muuqdeen labadaas nin waxaan dhihi karaa waxay la heshiiyeen Axmed Madoobe laakiin isbedel doonku labadaas nin ma ahayn isbedel doonku uu dhisan yahay golihiisa aqoonyahanka
hadda Nairobi aan joogno aqoonyahanka uu ka dhisan yahay oo nin la yiraahdo Maxamed Xarbi ayaa gudoomiye ka ah Kismaayo kale uu ka dhisan yahay North America Europe Australia meel walba golaha isbedel doonka aqoonyahankiisii aasaaska isbedel doonka la uu dhisan yahay marka muhiimadii isbedel doonka loo aasaasay wali anagu mayna gaarin cadaalad wali lama helin maamul Jubbaland hadda ay leedahay muddo sanad ku dhow ma jiro oo la aqoonsan yahay ama dawladda ay aqoonsan tahay ama international community aqoonsan yahay wax maamul waxa ugu dambeeyay maamulkii hore ee laga tabanaya cadaalad darrada ee Axmed Maxamed Islaan oo madaxda ka ahaa oo ah maamulkii hore kaas ugu dambeeyay hadda maamul sax oo ay dawladda aqoonsan tahay Jubbaland malaha marka hadafkii isbedel doonka loo dhisay wali lama gaarin shaqadiisii way socotaa marka hadii laba nin oo musharaxiina ay ayagu jeclaadeen inay sababtii rabtaa ku kalifto ama dhaqaale xumaa ku kalifto ama nolosha ku adkaato ku kalifto ama halgan kaba maaragtay markuu dheeraado dadka qaar way daalaan ha ku kalifta ee waxa weeyaan laba nin oo shakhsiyan ah oo Axmed Madoobe u xarooday weeyaan maaha ma midalan isbedel doonku taageerayaashiisii iyo dadkii isbedel doonka taageersanaa iyo dadkii aqoonyahanka ee maskaxda isbedel doonka ahaa iyo dhinac walba oo bulshada isbedel doonka ay ka jirtay waxaan gaarsiinaynaa in isbedel doonkii uu wali jiro sababihii loo aasaasana wali aan la gaarin cadaalad darradii aan ka tabanayno wali aan lagu guuleysan in doorasho xalaala ee Jubbaland ka dhacdo aan wali la gaarin sababta Jubbaland 8 sano jirto waligeed doorasho xalaala kama dhicin marka hadafkii isbedel doonka ma burburin istarajarkii qaabkii isbedel doonka uu ka howlgalayna ma burburin wixii yaryar ay qaldamana waana sixi doonaa marka waxaan dadkeena isbedel doonka u sheegaynaa inaysan niyad jabin isbedel doonka uu laba kacleyn doono hangaraaracna lug iyo laba toona uba dhutiyo labada nin ee ka haray meesha waxaa laba nin ayagu danaystay isbedel doonka ma midalan isbedel doonka hadafkii loo aasaasay uu gaarayaa uuna soconaya shaqadiisii haddana shirar baa noo socda ilaa dibad ilaa gudo marka waan gaari doonaa hadafkii marka labaas nin intaasaan maxeeto kaaga sheegi karaa waa mahadsantahay labadan musharax ee la sheegay inay la kulmeen Axmed Madoobe sida la wada ogyahay waxay ka tirsanayeen isbedel doonka isbedel doonkii may ka mid yihiin mise kama mid ah ma hadda kama mid aha laba nin oo tala isbedel doonka uu leeyahay ku baxayna ma aha wax heshiis oo isbedel doonka uu ogyahay oo madaxweynihii hore ee Jubbaland aan go'aansanay inaan la heshiino ama xilligii aan kula heshiin lahayn aan go'aansanay lama gaarin marka laba nin oo danaystay oo ayagu shakhsiyan u danaystay weeyane tala ee isbedel doonka wax ka siiyeen ma laha dhinaca kale labada nin iyo Axmed Madoobe marka aan fiirino waa saddex nin oo marka Soomaalidu qabiil bay u dhaqantahay isku reer ah oo hal qabiil oo Jubbaland qabiilada degan ee soddonka gaaraya hal qabiil oo kamid weeyaan marka hal qabiil ma go'aamin karo soddon qabiil oo Jubbaland degan go'aankooda ayagu ma go'aamin karaan marka waxay u ekaanayaan saddex nin oo ilmo adeer oo isu tagay oo heshiiyay oo ekaanayaan wax Jubbaland ay shaqo ku leedahay ama isbedel doonka Jubbaland oo shaqo ma aha waxaa jiray dhawaan in dagaalo beeleedyo ay ka dhaceen koonfurta magaalada Kismaayo oo dad badan ay ku dhinteen bal ka waran isbedel doon ahaantiina maadaama afayeenkii ururka isbedel doonka aad tahay maxaad ka warqabtiin oo dagaaladaas niyo dayaca haysta Jubbaland 8 sano la soo dhaafay iyo hadda yaa taas maxsuulkeedii weeyaan sababtoo ah mas'uuliyad darra meesha ka muuqata meel Kismaayo u jirta dhowr kiiloomitir oo koonfurta Kismaayo ah yaa laba qabiil aad maaragtay isugu baabeen maamulkii hore ninka madaxweynaha ka Axmed Maxamed Islaan 6 biloodba uu ka soo maqnaa magaalada Kismaayo marka hore Jubbaland uu madaxda ka ahaa ama maamulkii Jubbaland la dhihi jiray ee Axmed Maxamed Islaan uu madaxda ka ahaa wuxuu ku ekaaba Kismaayo iyo Afmadow marka Jubbada hoose la yiraahdo intaas kaliya ahaa iyo gedo meelo kamid ah marka cadaalad darrada sheegaynay iyo mas'uuliyad xumada aan sheegaynay umba waxay keenaysaa in shacabkii boqolka tilaabo u jiray Kismaayo koonfurteeda in xataa la xalin waayo markuu dagaalka socday Axmed Maxamed Islaan wuxuu iska joogay Nairobi meelaha iska joogay marka waxaa meesha ka muuqata mas'uuliyad darro waxyaabaha isbedel doonka ay ka kaceenba waxaasa sabab u ah waxaa jiray dhawaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ka socday ay soo gaareen deegaano badan oo ka tirsan deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado sidee u aragtiin adinka ciidamadaas horta intaan ciidamada galin waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaashii isxilqaamay labadaas qabiil ee ku dagaalamay koonfurta Kismaayo u istaagay nabadeynteedii meel fiican ay u marayso Allah idinku guuleeyo wax fiican baad qabateen baan leenahay marka su'aashaadan u soo laabto ahayd in ciidamada yimid
dowladda ay yimid gobolka Gedo horta gobolka Gedo waa 6 degmo dowladda Soomaaliya waa dowladda Soomaaliya oo dhan ka talisa marka waxaa yaab leh in dowladdii Soomaaliya oo gobolkeedii timid oo xuduudkeedii timid in hadalla khilaaf abuuraya laga sameeyo waa qalad dowladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay xuduudka Soomaaliya xuduudkii inay sugaan bay u yimaadeen dambina ma aha annagu haddaan la weydiisay isbeddeldoon boosashkeena annagu waxaan qabnaa isbeddeldoonka sidiisaba waxyaabaha annaga oo aasasnay waxay tahay annagu waxaan rabnaa maamul Jubbaland la yiraaho oo looga taliyo magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya loo doortay hoostaga oo tala ay ka dhaxayso Soomaali mideynteedii iyo wanaageedii ay wada raadinayaan waa hadaf isbeddeldoonka u sameeyay marka haddii dowladdii ay timid gobolka Gedo waxay u egtahay in dadkii deganaa gobolka Gedo oo kamid ah gobol kamid ah Jubbaland dadkii shacabka ay relief heleen ama ay heleen xorriyad waxaa kaaga muuqata 6 saac habeenimo buulaxaw dadka shacabka inay hor ordayeen ciidanka jacayl ay u qabaan iyo caburuntii 8 sano la soo dhaafay maamulka Jubbaland uu ku hayay especially wasiirkii arrimaha gudaha ee hore ama maxbuuskii ka soo baxsaday xabsiga janan dhibkii uu ku hayay dadka xoroobo ay kaayeen marka dadkaasna relief bay heleen dowladana waan ugu mahadnaqaynaa gobol kamid ah gobollada timid waxaan filaynaa in sida xaqay u yimaadeen ay u yimaadaan gobollada kale ee dhiman Jubbaland si dadku ay helaan relief cadaalad iyo xorriyad ama ay u helaan doorasho meel ay ku samaysan karaan waxaa kaloo jiray in dagaallo ay dhexmareen ciidamada dowladda iyo kuwa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ugu dambeyn sababay in Cabdirashiid Janan iyo ciidamadii uu watay ay ka gudbaan xadka Kenya soo galaan bal ka waran adinka arintaasi maxaad kala socoteen dagaaladaasi horta wasiirkii amniga ee hore Cabdirashiid Janan marka ciidamada dowladda ay tageen gobolka Gedo iyo wuxuu ka baxsaday xabsi marka horta ma ahayn wasiir nin maxbuus ah oo baxsaday oo international community ay raadinayso ahaa marka wuxuu isku dayay inuu qalalaaso ka abuuro buulaxaabo oo dagaal uu ka sameeyo asagoo Mandheera jooga marka dadkii Mandheera culumadii xildhibaanada laga soo dooranay Mandheera waxgaradkii Mandheera way kaceen wayna ka istaageen Cabdirashiid Janan inuusan waxba ka sameyn buulaxaabo isku dagii uu ka sameeyay mid uu hirgalay ma aha asaga shakhsiyan waa maxbuus ilaa hadda la raadinayo oo marka ugu horeyso gacanta dowladda meel dowladda Soomaaliya xukuumad marka la tago gacanta lagu dhigayo taas baan ka halayahay dhinaca kale ciidamada dowladda meesha yimid dagaal uma iman waxay u yimaadeen dad dhibanaa 8 sano dad la caburinayay dad gaajo haysay dad cadaalad darro badan ku dhacday dad shaqo la'aan badan ku dhacday oo uu koosgareynayay Cabdirashiid Jananka aad sheegaysid oo gobolkaas ka soo jeedo ahaa wasiirkii hore amniga isla markaas hadda maxbuus dhibaatada u geystay iyo dowladda u soo gurmatay hadafka laakiin dowladda meesha u timid ma ahayn taas dowladdu waxay u timid xuduudkan dheer ee dowladda Kenya iyo Ethiopia na dhaxyal inay ciidankeeda ku sugto waana taariikhda markii ugu horeysay intuu burbur ka dhacay xuduudkaas dheer ciidan dowladda Soomaaliya ay leedahay u yimaado waxaa jiray war ka soo baxay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International taasoo dowladda Kenya looga dalbanayay in ay dowladda Soomaaliya u gudbiso Cabdirashiid Janan maadaama uu ka soo baxsaday xabsi ka isbedel ahaan doon ahaan adinka maadaama aad deegaanadii dadka u dhashay aad tihiin haddana aad tihiin dad midoobay oo isbedel doon ah sidee u aragteen hadalka hay'adda ka soo yeeray anigu horta hay'addaas aad baan ugu hambalyeynaa warqadii ay qoreen boosishinka annaga aan qabnayna tilmaameen sababtoo qof kastoo cadaalad darro sameeya in sharciga la hor keeno annagu waan qabnaa oo wax cadaalad aan u radinayno marka haddii ayagu boosishinkaas ay qaateen oo ay caddeeyeen dunuubta uu galay waan ku soo dhaweynaynaa kulley meesha ku dambeysana ayay qusaysaa laakiin warqadaas way qoreen wax inta ku qoran waa intaan aaminsannahay ama inta aan rabno qof kastoo dambiile ah in cadaaladda la hor keeno waa waxa isbeddeldoonka uu qabo in muddo ah waxaa magaalada Nairobi ku sugan madaxweynihii Jubbaland Axmed Madoobe adinkana waad ku sugantihiin ma jiraa wax wada hadal ama xitaa dad idin dhahay ama dowladda idin dhahay aan idin heshiisiin oo aan dhexdiina galna ma jiraan niyo horta anagu horta Nairobi kuma wada sugnin qaar naga mid anaga Nairobi way joogaan ilaa adduunka dhan bay joogaan North America Australia Europe meel way joogaan xooggeennana 80% waa dadka Jubbaland jooga 15 degmo ku nool 6 degmo gada ah 3 degmo oo Jubbada dhexe ah oo nasiib darrada dhacday 8 sano in ka badan gobolka kaliya
nimankan argagixisada al-shabaab ay gacanta ku hayaan waa gobolka jubbada dhexe waa dhibaatada dhacday intii maamulka hore meesha uu ka jiray waa Soomaaliya meesha gobolka kaliya ay gacanta ku hayaan marka haddana waxaa socda howlgallo fiican marka anagu isbedel doon ahaan wax aan ku tashanay wali inaan maxay ahaato maamulka hore kula heshiina ma jiro sababtoo waxa isbedel doonku uu sameysmayba waa cadaalad darradii maamulka hore anigu hal position uma taaganahay maamulka hore asagoo musharax ah ka soo qayb galo tartan doorasho oo cadaalad ah hadduu ku guuleystana nasiibkiisii waa la shaqeynaya hadduu ku guuleysan waayna lama shaqeynayo laakiin sidii August dhacday doorashadii uu asagoo iska sameystay taas oo kale anagu ma soo dhamaysanayno waxa marka tan ay su'aasha ay weydiisay meel anagu aan kaga tashanay in aan maamulka hore Jubbaland aan la heshiina ma jiro cadaalad darradii shalay aan ka tirsanay dhibaatooyinkii aan ka tirsanay maamulka horena wali uu taagan yahay marka haddii taas dhacdana anagu ma nihin dad mar walba diidayo in la wada hadlo laakiin tala anagu aan ku go'aansanay inaan la hadlo maamulka hore Jubbaland ma jirto dowladda Soomaaliya mowqif ay ka taagan tahay maamulka Jubbaland oo ah ma aqoonsan mid aan aqoonsanayn dowladda waxa jiray dhowr mar in dowladda Soomaaliya ay duulimaadyadii iyo safaradii ay cunaqabateyn ka saartay magaalada Kismaayo ama deegaanada maamulka Jubbaland uu ka taliyo in la tago adinka say u aragteen in cunaqabateyn maamul meel ka jira la saaro oo dad bulsho ah ay ku nool yihiin anagu horta guud ahaan haddaan nahay isbedel doonka waxaan nahay isbedel doon Soomaaliya gudaheeda ka mid ah waxaan nahay isbedel doon gobol ama maxay maamul goboleed Soomaaliya ka mid ah ka jira mar walba qalad iyo sax anagu waxaan taageersanahay horta positionka dowladda midda hadda aad ka shanqarisay ku saabsan duulimaadyada horta dowlad walba adduunka ka jirta duulimaadkeeda waxaa kontroola hawadeeda iyo duulimaadkeeda iyo systemka hawada oo dhan waxaa kontroola dowladaha centralka ah marka dowladda federaalka ah yaa mas'uuliyadaas iska leh in elaboorka Kismaayo iyo kan Muqdisho iyo kan Berbere iyo kan Boosaaso laga xukumo Muqdisho waa sax weeyaan adduunka dhan waa saas buu u jiraa waana sharci marka taas anigu ma arko dhibaato dadkana dhibaato looma geysan laakiin haddii aan dib u fiirino taariikhda maamulka hore ee Jubbaland dad mas'uuliyiin ah oo madax ah oo wasiiro ah oo waliba Jubbaland ka soo jeeda rag saraakiil oo Jubbaland ka soo jeeda oo dowladda Soomaaliya oo soo magacaawday Jubbaland yaa elaboorka Kismaayo laga celiyay waxaa waryaal baatiin waxaa taariikhdu ku haysaan dad odayaal dhaqameedyo ah iyo dadkii maxay talabeynta ummadda ahaa in Jubbaland laga tarxiilay waa meesha kaliya Kismaayo tarxiil uu ka dhacay qof Soomaali ah oo dhulkiisa laga tarxiilayo waa meesha kaliya uu ka dhacay waxaa jirtay in niman wasiirada elaboorka intay kasoo degaan maaragtay elaboorka laga celinayay jannana laga celinayay marka horta taas cadaalad darradaas oo dhan hore u jirtay waxyaabaha aan anagu u samaysanayna ka mid ahayd laakiin cilad ma noqon karto maxay hawada Soomaaliya u xukunta dowladda Soomaaliya wax cilad noqon karto ma laha anagu haddaan isbedel doonahay hadday dowladda Soomaaliya xun tahay iyo hadday fiican tahay anagu waxaan nahay dad laga xukumo Muqdisho ma nihin dad laga xukumo Addis Ababa ma nihin dad laga xukumo Nairobi taas horta waan isla garanaa qaladaadka yaryar ee ka dhex jira dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland ma aha qaladaad iska yimid waa qaladaad maamulka hore uu abuuray haddana ku sii adkaysanayo anagu waxaan rabnaa maamul xalaal ah oo dowladda Soomaaliya la shaqeeyo hadduu qalad yimaadana si degan oo Soomaalima loo wasaxnaa waxa aan u abuurnayna taas ka mid tahay waxaa jira in maamulka Jubbaland in muddo uu ka ariminaya deegaano ka mid ah in gobolka Jubbaland gobolada Jubbaland waxaa jira gobolkan in qaybo ka mid ah ay haystaan kooxda al-shabaab waxaa jira howlgallo ciidamada dowladda ay wadaan oo ay doonayaan inay ku xoreeyaan magaalo madaxda maamulka Jubbaland ee Bu'aale howlgalladaasi bal ka waran ay ciidamada dowladda ay wadaan horta marka koowaad oo soo dhaweynaa howlgalka dowladda Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wada Jubbaland 8 sano dhibaato badan baa ku dhacday dadka Jubbaland dhex degan waa gobolka kaliya ee gacanta al-shabaab ku sugan muddo 10 sano ka badan madaxweynihii ka horeeyay Farmaajo ee Xasan Sheekh kumuusu guuleysan inuu ka howlgalo taas maamulkii hore ee Jubbaland waxaad muddo asagu inuu raalli ka yahay in maxay Jubbaland xigsan ay ahaato oo loo haysto waa dowladda kaliya ee Soomaaliyeed ee isku dayday inay Bu'aale Jubbada dhexe xoreyso horta koow waan soo dhaweynaynaa labo waxaan ku talinaynaa sidii gada ka dhacday
in talada jubbada dhexe dowladda Soomaaliya ee u xulato dadkii aqoonyahanka ahaa ee siyaasiyiinta ahaa ee deegaankaas ka soo jeeday inay liid gareeyaan ama hogaamiyaan howlgalkaasna ilaahay ha soo dedejiyo jubbada dhexena way xoroobaysaa dowladda annagana ilaa xad waxbaan iska ognahay inta naga dhimanna waan dhamaysan doonaa jubbada dhexe waxaa ku taal caasimadda Jubbaland 8 sano caasimadda Jubbaland waxay ku jirtaa gacanta al-shabaab waxyaabaha yaab kale ee maamulka Jubbaland aan kula yaabanayn annagu aan ka samaysanayba marka haddii caasimadani la xoreeyo waan soo dhaweynaynaa waan tagaynaa waxaan rajaynaynaa meeshaas inay wax xalaal ka dhacaan dawladdu inay taxadar badan ka muujiso in la tashi badan ay la sameeyso dadkii deegaankaas ahaa ee aqoonyahanka ahaa inay liid gareeyaan mashruucaas lagu xoreynayo jubbada dhexe waxaan soo dhaweynaynaa inay doorasho xalaal ah meesha ka dhacdo waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo lagu xoreynayo jubbada dhexe alcumuuman waxaa jira warar sheegaya in haddii ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku guuleystaan inay xoreeyaan Bu'aale oo ah magaalada madaxda ee maamulka Jubbaland in halkaasi la isugu yeerayo in musharaxiintii ka biyadiidsanaa in doorasho xalaal ay ka dhacdo Jubbaland oo halkaas doorasho lagu qabanayo taas bal ka warnay haddii caasimadda Jubbaland la tago ku dhawaad sanadna maamul la aqoonsan yahay Jubbaland uusan ka jirin waxaa dhici doona doorasho annagu ma cayimayna musharaxiinta nin kasta oo Jubbaland u dhashay oo 15 kaas degmo ka soo jeedo ee isbidaya inuu ummadan hogaamin karo asagoo naga gadaya waxa uu nagu hogaaminayo welcome waa inuu sharaxo weeyaan cid annagu aan faquuqayna male xataa ninkii hore danuubta naga galay Axmed Maxamed Islaam hadduu yiraahdo waan sharaxay aan ku soo dhaweynaynaa marka taas waa mid aan sugayno waana guul kulay Jubbaland u soo yeynayso oo aan soo dhaweynayna hadii la yiraahdo maadaama aad adiga afhayeenkii isbedel doonka in Jubbaland aad tahay ma yahay isbedel doonka kuwa ay ku midaysan yihiin dadka deegaanka oo dhan waayo Jubbaland hal qabiil oo kaliya midka qabaa'il badan oo Soomaaliya degan ma ku midaysan yihiin isbedel doonku wuxuu ku midaysan yahay dadka deegaanka Jubbaland degan ama degan 3 gobol ee la isku yiraahdo Jubbaland ama degan 15 degmo ee Jubbaland dadka degan qabiil kasta oo ka tirsan iyo cid kasta oo ka tirsan isbedel doon ku midaysan maanahay saan hore kugu sheegay waxaan leenahay aqoonyahan aasaaskii isbedel doonka lahaa walina gacanta ku haya isbedel doonka waxaan leenahay musharaxiin isbedel doonka ahaa oo 2 nin hadda ay Axmed Madow ku biireen marka sawirkan uu noqonayo hal qabiil iyo ka soo wada jeedaan qabiilkaas kaliya inuu Jubbaland leeyahay taasna ma aha Jubbaland hal qabiil masiirkiisa ma go'aamin karo waxaana ku koobanahay Soomaali oo dhan marka Bu'aale la xoreeyana Soomaaliland baa isku tagay doonta cid kastoo Soomaaliland doorashadaas way ka qayb gali doontaa waana soo dhaweynaynaa isbedel doonkuna ma aha mid qabiil kaliya muxuu yahay marka hadafkiina isbedel doonka annagu hadafkeena horaan kugu sheegay hadafkeena waa in cadaalad la helo waa in Jubbaland doorasho ay ka dhacdo Jubbaland weligeed nasiib uma helin inay doorasho ka dhacdo 8 sano la soo dhaafay ama 10 sano ku dhawaad wax doorasho ka dhacay ma jiro qaabkii Axmed Madow lagu dooranayay qaab doorasho ama qaab iska maaratay nooc kale ah oo iska fowda ah iyo aha kow waxaan soo dhaweynaynaa in doorasho xalaal ka dhacdo laba waxaan soo dhaweynaynaa in cadaalad ka dhacdo saddex waxaan soo dhaweynaynaa in hoggaan xalaal u yimaado dhinac walba oo horumar laga sameyn karo in maamul horta inaan helo iyo amni ayaan sameynaa marka maamulka hore intaas kuma soo guuleysan annagu halgankeena waxa weeyaan in aan helo maamul ku guuleysta in Jubbaland oo dhan laga xoreeyo gacanta cadawga in Jubbaland oo dhan loo sameeyo maamul xalaal ah in degmo walba oo Jubbaland ka mid ah ay doorato qofka ayaga gudoomiyaha u noqonayo in madaxweynaha si cadaalad uu ku yimaado in amniga la sugo kadibna horumar loo gudbo meesha annagu hadafkeena u socono waa taas weeyaan sidee isdhihi kartaa marka waxaas oo dhan waa lagu heli karaa waxaas dhan waxaa lagu heli karaa marka hore bal horta in caasimadda Jubbaland la xoreeyo inay Soomaali isu timaado inay doorasho xalaal ah oo Soomaali ay ka shaqeyso qurux badan ay ka dhacdo Bu'aale madaxweyne aan ku wada qanacsanahay inuu meesha yimaado maamul wada mideeya 15 degmo in uu dhasho sababtoo maamulka hore Jubbaland wuxuu ka talinayay Kismaayo Afmadow iyo Doolow kaliya inta kale way ka maqneed gacantiisa marka Jubbaland 15 degmo maamul xoreeya ciidankan gaajeysan maamul u sameeyay system tirakoobkooda lagu saxo mushaarkooda lagu saxo noloshooda kor loogu qaado sababtoo ciidan qof u shaqeeya hadduu egyihiin ciidan xataa mushaar qaata ma noloshoodan aad bay u qaribantay marka waxaas dhan baan rabnaa sababtoo ciidanka haddaadan nooleyn ammaankii ma helaysid
ammaan haddaan helin horumar ma helaysid horumar haddaan helin cadaalad ma helaysid marka anagu in meeshan u socono meeshaas weeyaan hadii la yiraahdo waxaa jira in ciidamo amisom ka tirsan oo waliba ciidamada Kenya ay joogaan magaalada Kismaayo ee xarunta hadda u ah Jubbaland waxaa la sheegaa inta badan in dekada magaalada Kismaayo laga dhoofiyo dhuxul si sharci darro ah oo dhowr marna ay ka hadleen hay'ada u dooda xuquuqda oo ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland bal ka warantaas aydan horta marka hore ciidanka aad gooni u magacaawday ee dawladda Kenya markay xuduudka ka gudbaan oo ay joogaan magaalada Kismaayo oo kale ma ciidan Kenya waxay ku joogaan Amisom waa ciidan Amisom ka tirsan mandate-ka Amisom ku shaqeeya barnaamijka Amisom ee dawladda Soomaaliya raalli ka tahayna ku jooga meesha marka aan Kenya u soo laabto Kenya waa aasaaskii Jubbaland wax badan bay Soomaaliya u tartay ugu yaraan 600,000 ama 1 milyan ku dhawaad oo qaxootiga bay 30 sano gacanta ku haysaa waa dawlad abaalkeeda aan gudi karin runtii laakiin qaladaadka dhacay waxa weeyaan informationka ay ka helayeen maamulka Jubbaland yaa information qaldan ama dadkii u adeegsanayeen ee siyaasadda Kenya yaa dad qaldan marka qaladaad badan oo aan sax ahayn baa dawladda Kenya loo sheegay oo maamulka Jubbaland uu sheegay marka ayaguna waxaad muddo inay soo fahmiyaan waxaan soo dhaweynaynaa inay qaladaadkaas saxaan Jubbaland abaal bay u haysaa Kenya Jubbaland waxa weeyaan ma iloobi doonto wixii Kenya ay u tartay laakiin isa saxan leenahay wixii idinka qaldan ciidankaas meesha joogan wuxuu ku joogaa magacaas Amisom dhinaca dhuxusha waa iska arin caalami ah UNEP United Nations Environmental Program iyo hay'adaha qusayna reportkooda way hayaan idinka meediyaana warka waad haysaan marka taas inaan aad u sii dhaxgalo mar labaad ilaahay waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay wareysiga waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah aad nasiisay waxaa jira cudur dhawaan ka dilaacay caalamka oo saameyn aad u ballaaran ku yeeshay guud ahaan caalamka kiiskii ugu horeeyayna waxaa laga sheegay deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo maalintii shalay ahayd maamulka Jubbaland ee hadda ka jira magaalada Kismaayo ama qaybo kamid ah jubbooyinka ma yahay mid u diyaarsan ama u diyaar garoobay inuu cudurkaasi uusan ku faafin sidii looga hortagayaa deegaanada horta ilaahay adduunkuna ka badbaadiyo cudur faafa cudurka ugu qatarsanaa ee adduunka soo mara weeyaan corona virus ama COVID-19 dawladihii dhaqaalaha iyo horumarka iyo dhinac walba ugu sareeyay adduunka ee super power-ka ahaa waad aragtaan wax ku dhacay marka horta guud ahaan dadka insaanka ee adduunka nool ilaahay ka badbaadiyo cudurkaas qaasatan dadka islaamka ilaahay ka badbaadiyo dadkeena Soomaaliyeed guud ahaan ilaahay ka badbaadiyo waa dad aad u jilicsan taxadarkoodana sameeyaan dadka Soomaalida qaabkii u dhaqmi jireen qaab ka duwan inay u dhaqdaan ogaadana cudurkan uu sameeyay cudur ciyaar ah oo qatar ah oo dadka baabiinayo waxa ku soo Jubbaland qatar weyn baa ku soo foodleh waxaan u sheegayaa dadka reer Jubbaland maadaama kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus laga helay magaalada Kismaayo inay taxadar badan sameeyaan ayagu dad ahaan shacab ahaan ay mas'uul isu saaraan waxgaradka iyo ugaasada iyo kullina ay u istaagaan sidii looga diyaar garoobi lahaa cudurkaas sababta maamul dadkaas hagi kara ama maamuli kara oo hadda ka jiro ama la aqoonsan yahay ama 8 sano maamulka ma jirin marka maadaama aan maamul jirin cid ay isku haleysaan ma jiro guriyihiina ku urura kala fogaada isu dhawaanna salaanta yareeya gacmaha dhaqda caafimaadkiina ilaaliya afka xirta odayaasha iyo waxgaradkii aqoonyahankan waxaan leeyahay u kaca dadkiinii sababta maamul hagi kara oo qatartan ka badbaadin kara Jubbaland kama jiro wixii kare normalka ah oo maamulkan hagaajin waayay marka cudur faafayo maamul hadda uu istaagay ma jiree waxaan leeyahay reer Jubbaland oo taxadara oo ogaada in maxay qatar ku soo wajahantahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wareysigii gaarka ahaa oo aan la yeelanay Dr. Liibaan Maxamed Culuw oo ah afhayeenka golaha isbedel doonka Jubbaland oo inooga waramayay xaaladaha guud ee deegaanada Jubbaland barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo Cabdishakuur Faarax Igale waxa uu idinkaga imaanaya xarunta TV-ga Home Cable uu ku leeyahay magaalada Nairobi waxa dhinaca kaamirada iyo farsamada quruxda badan bay iga gacan siinayay Cabdirashiid Obsiye intaan barnaamijkan barnaamij xiga aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah